xukuumadan xilgaarsiinta ama wasaaraha ma isleedahay doorkiisi maadaama asaga doorashada uu hogaaminayo waa qaatay ma qaadan doorkiisi Prime Ministerka Maxamed Xuseen Rooble kaalintii shacabka Soomaaliyeed ay ka sugayeen oo ahayd in doorasho xor oo xalaal oo cadaalad ah dalka ka dhacdo oo la aqbali karo arrintaas waa ku fashilmay si weyn buu ugu fashilmay waxaan la oran karaa Maxamed Xuseen Rooble uu khiyaamiyay shacabka Soomaaliyeed dadaalkii ay galeen halgankii ay galeen iyo in ay doorashadoodii inta ka soo wareejiyeen madaxweynihii hore asaga lagu amaanayay marka nasiib darro wuxuu gacanta u geliyay maamul goboleedyada oo raba ayaguna inay ku takrifalaan oo qofka ay rabaan xildhibaan ka dhigaan qofka rabaan ay diidaan markhaatina arrintaas waxa u ah sidii ay u maamuleen aqalka sare marka nin cadaaladiisii aan aragnay iyo sidoo waxyeelay iyo ku takrifalkii awoodda uu sameeyay in haddana la yiraahdo doorashadii aqalka hoose ayaad haddana maamulaysaa oo awoodeeda adiga lagu siina hadda wax la aqbali kara ma meeshii ku dhamaanaysana waa muuqataa marka musharaxiinta oo aan ka mid ahay shacabka Soomaaliyeed in dargaradka odayaasha Soomaaliyeed si weyn bay uga qayliyeen arrintaas marka waxa la rabaa in dib loogu noqdo oo laga wada hadlo oo la xaqiijiyo doorashada dhici doonta inay xor iyo xalaal tahay inay cadaalad tahay inay aqbali karaan shacabka Soomaaliyeed inay si nabadgelyo ku dhacdo wax ka hooseeyana lama yeeli maxaa adinka hadda musharaxiinta tihiin ama madashi tihiin doorashadu way bilaabatay aqalkii sanadka socdo inta yaroo dhamaystir u baahan kii kale taa loo diyaar garoobaya maxaa ka didaysaan oo aad leedahay wasaaraha waxaasan ka rabnay oo uu ka leexday ra'iisul wasaaraha waxa laga rabay doorashadu inay noqoto xor iyo xalaal si cadaalad ku dhacdo si amniina ku dhacdo guddiga doorashada heer federaal uu yeesho awood ugu badan ee doorashada lagu maamulayo arrintii ma dhicin Prime Ministerka Maxamed Xuseen Rooble doorashadii awoodeedii iyo sidoo waxyeelay waxay ka muuqataa habraaci ay soo saareen 7 bisha 3 bisha marka arrintaas waxaan leenahay arrin la aqbali kara maahan Maxamed Xuseen Rooble shacabka Soomaaliyeed waxay sugayeen doorasho xor oo xalaal ah oo guddiga doorashada ee heer federaal mas'uuliyadda ugu weyn uu leeyahay laakiin maamul goboleedyadii haddaad ku wareejisay oo awoodii ay yeesheen oo habraaci ayagu ay soo qoreen ayagiina ay siiyeen awoodii lama aqbali karo marka waxaan leenahay doorasho ma dhici karto ayadoon heshiis lahayn way arrintan waa arrin qaran waxa kaliya doorasho xor oo xalaal ah wax ku dhici karta in heshiis lagu yahay habraaci heshiis lagu yahay awoodda cidda iska leh heshiis lagu yahay cidda qabanaysa doorashada heshiis lagu yahay haddii aan heshiis lagu ahayn hadda nin kaligiis inta tago maamul goboleedkiisa doorasho kama sameyn karo marka waxaan leenahay khilaafkan inuu sii dheeraado lama rabo in wadankan xasiloonidiisa shaki la geliyo lama rabo in doorashadu xor iyo xalaal u dhacdo ayaa la rabaa sida daraadeed waa in arrimaha taagan laga wada hadlaa la isu yimaadaa laga waxaajoodaa wax heshiis lagu yahana la wada saxiixa doorashadana la aadaa tan kale musharaxiintu waa dadka ay saameynayso waxa doorashadu qaabkay u dhacayso marka waxaan rabnaa doorashada inaan si gaara loo bursan in dad gaara aan dad loo soo saarin in loo siman yahay doorashada dawlad goboleedyada saameyn ay ku leeyihiin aqalka sanadka walba waxay ahayn wakiilada dawlad goboleedyada dawladda Soomaaliya ku xiran dawladii Soomaaliyana door ay ku leedahay wasaarihii waa isaga hormuud oo hogaaminayo maxaa adinka ka biyadiidsantiin oo rabteen in la kala tashado musharaxiintiin waxaan diidanahay habraaca khaldan oo la soo saaray oo aan qodobeeyay oo ugu horeysay ergada yaa soo qoraya lacagtan ergada laga qaaday maxay tahay arrintan booliiska la leeyahay musharaxiinta xildhibaanadu warqad baa laga rabaa arrintan kale oo la leeyahay guddiga doorashada heer maamul goboleed baa civil society ka qayb galaya xulista ergada soo qoraya iyo awoodii guddiga doorashada heer federaal oo la wiiqay oo xilkii laga wareegay oo lagu koobay kor joogteyn ee wixii soo baxay inay saxiixaan taas marka waxa soo dhan waa wax noo muuqda inaysan doorasho xor oo xalaal dhici karin marka waxaan la qayleynaa waxaan leenahay habraacan sax maahan waa in la bedelaa shacabka Soomaaliyeedna ma aqbalayaan musharaxiintuna ma aqbalayaan aqoonyahankuna ma aqbalayaan dargarka Soomaaliya kulli waa diideen waa muujiyeen kaalintooda waa muujiyeen waxa ay diidan yihiin iyo cadaalad darrada waxa kaliya la raadinayo waa cadaalad cadaalad darrada meesha ka muuqata marka musharaxiintiina ama kudladiina aad ku midaysan tihiin waxaad tiraahdaan doorashada waa inay ku dhacdaa waqtigeedii
tallaabo kastoo la qaadana haddana waxaad tabanaysiin inaad caqabad ay meesha jirto oo qayladiin waa socotaa mar kastana oo wixii gadaal usii dhacaana waxay fursad siinaysaa dadka aad shalay lahaydeen kursiga iyo waqtiga ay dhuminayaan ma islaada laftirkiina caqabad muuqataa tihiin dabcan annaga horta waxaan raadinayno ugu weyn waxa waaye doorashadu inay waqtigeedan ku dhacdo si xor xalaalan u dhacdo marka dhibaatada jirta oo doorashada dib u riixaysa waa damaca siyaasiyiinta awoodda dalka haya oo mar walbaba raba inay wax bursadaan qalloocsadaan si xaq aan ahayn u maamulaan doorashadii haddii cidi rabto doorashadu inay waqtigeeda ku dhacdo si degdega u dhacdo waa musharaxiinta waayo annaga ayay arrintii culays nagu haysaa laakiin inaanu difaacno cadaaladda inaanu difaacno doorasho xor xalaal inaanu difaacno inaan la isboobin inaan difaacno waxa weeye mas'uuliyadaha musharaxiinta iyo shacabka intiisa indhargaradka waajibaadkooda ka mid tahay markaanu difaacayno in doorashadu si xor xalaal u dhacdo in cadaalad wax u dhacaan waxaan difaacaynaa oo ka hortegaynaa waxyaabo waxaan ka khatarsanay inay yimaadaan oo hub la isu qaato oo la dagaalamo waayo cadaalad darrada waxa ka dhalanaya waa la yaqaan oraha baa waxay tidhahdaa haddii cadaalad loo waayo nabad lama heliyo soomaaliduna waxay tidhahdaa soomaaliya balaayada dhanba waxay ka soo raacday doorasho la boobay marka haddaanan ka hortegin doorashada la boobayo haddaanan diidin cadaalad darra maanta la samaynayo berri meeshaan joogno meel ka xunan aadayna marka waxaan gudanaynaa waajibaadkeennii qaranka oo ah in cadaalad wax u dhacaan in doorashadu si sax u dhacdo iyo inaan ka hor tagno raggan siyaasiyiinta Soomaaliyeed hadda xilka ayu caadaystay mar walba inay wax boobaan cumar qolihiina madasha ama musharaxiintiina guudba waxaad cabasho ka muujinaysaan inta badan sida habraacyada loo maareeyay sidoo kale Somaliland sida iyadan arinteeda loo wajahay ma ku midaysantiin horta musharaxiintiina طبعا musharaxiintu aragtidaas waa ku midaysan tahay hadda ma maqal musharax diiday oo yiri habraacan waa saxiix tan kale shacabka Soomaaliyeed intooda indhargaradka siyaasiyiintii hore aqoonyahankii mucaaradka kale aan musharaxa ahayn kullu waa diiday oo waxay arkaan waxaan in cadaalad tahay dadka Soomaaliyeedna ay mudan yihiin cadaalad ka fiican waxa kan nabadgelyada wadanka iyo xasiloonida siyaasadeed dalku u baahan yahay ay ku xiran tahay doorasho xor xalaal cadaalad inay dhacdo waa gartay maxaa is leedahay waxaas asaas u ah khilaafaadka jira muxuu xalka ku leeyahay runtii waxa uu ah asaaska khilaafkan waxa weeye damaca siyaasiyiinta oo raba inay ayagu bursadaan oo ay boobaan doorashadii ayagoo ama ayagu laftooda wax raba oo isle si aad jagada u sii joogto dad adiga ku codeeya raadso soo qoro ama se dad ay wataan oo saaxiibadooda raba inay dad u soo qoraan ama raba inay lacag ka sameeyaan processka intaasoo sababood baa horta runta ay tahay oo waxaan hadda boobkan iyo cadaalad darradan waana dhaqan soo jireen oo markaad fiiriso siyaasiyiinta Soomaalida muddo soo socday oo u baahan in la soo afjaro shacabka Soomaaliyeedna yiraahdaan no more cadaalad darra dambe maya cadaalad darraba maya waa in sidii loogu talagalay iyo shuruucdii aan ku heshiinay la aqbalaa laaluushka la diriraa jeclaysiga la diriraa ismaqooninta la diriraa manipulationka ama se inuu ninka uu rabo wax ka dhigo ninkii saxaayo cadaalad ahaan uu diido lama aqbali karo xalkuna wuxuu ku jiraa in sidii loogu heshiiyey loo raaco xeerarkii wadanka u yiilay sida ahaan loo raaco xeerarka kulli waxay ku dhisan yihiin qab cadaalad marka haddaanu shuruucda noo taal iyo wixii lagu heshiiyey siday ahaayeen u raacno khilaaf ma imaanayo marka siyaasiga damaaciga oo hunguriga weyn oo raba inuu wax boobo waayo khilaaf ka taagan ilaa maalinkii doorashadan bilaabatana intaasaa laga hortagay oo la hortaagnaa waayo meeshii ku dhammaanayso waa naqaana cadaalad darrada iyo boobka meel ka xun meesha joognay ku dhammaanayso wararka qaar waxay sheegayaan in maamul goboleedyada qaarkood ay musharaxiinta ka mid yihiin oo iyaga laftirkooda ay madaxweynimo rabaan doorashadina saameyn ay ku leeyihiin oo deegaanka iyo dadkii la soo xulayay iyaga meesha ay xukumayeen ay tahay laftirkooda maxay abuuri kartaa arrintaas waa arrinta ugu yaabka badan ama ugu qosolka badan in marka in ninkii doorashada maamulayay ama xildhibaanada qoray ama aqal kale soo qoray oo intuu dad soo qorto oo maamul goboleedyadii la soo heshiiyo oo asagoo wata 150 xildhibaan qadiga ugu jiraan uu yiraahdo waa tartama say ku dhici kartaa ninkii aan wax soo qoran
ومشرعها أو در إلهيها ينك وحصو قرتي سو ترتمية ترتم مركز اللي بقولي هي وحي لمتها هي لما قف قرانك تلقي أرديو كري لمتها هدي قفنا وددي وكوردي دحان لو دغا ما قطحo qofna loo xaaro dabcan qofka soo qofka guuleysanaya waa muuqda siyaasaduna waa sidaas ilaa hadii nin raba damac uu ku jiro madaxweynenimo waxa la rabaa 6 bilood ka hor doorashada inuu iclaamiyo lagana ilaaliyo inuu ku yeesho saameyn nidaamka doorashada oo uusan dad gaar soo xulan karinin habraaca uusan asoo qayb ka noqonin قالوا waxay yiraahdaan waxa la yiraahdaa conflict of interest masaalix isdiidaysa waay marka cadaalad ma imaanayso marka dad waaweyn baan aqoon baan leenahay siyaasiin baan nahay hadaanan diirin dulmiga iyo cadaalad darrada wadankuna degi miyo khilaafkana laga gudbi miyo si nabadgelyo doorasho ku dhicmayso marka waxaan leenahay qof kasta oo damacaas ku jiro xaaraan tahay ha ka tanaasulo hadaad musharax tahay waa inaadan doorashada qayb ka qaadan maxamed cabdullaahi farmaajo hadii loo diidayna qof kale in laga aqbalo sax ma maxay tahay doorkiina madashada annaga waxaan rabnaa oo aan difaacina doorasho xor oo xalaal ah oo credible ama la aqbali karo inay wadanka ka dhacdo habraaceedana heshiis lagu yahay processka ay maraysana guddiga doorashada uu maamulo oo madax bannaan haddii la waayana doorasho dhici mayso sababtoo la isma khasbi karo waxaan kaliya marka uga digaynaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee xilalka haya han noqdeen maamul goboleedyada kuwa madaxda ka ama kuwa federaalka noqdo cadaaladda baad wax ku noqon kartaan cadaaladda ilaaliya haddii ay idin ku jirto hammi inaad musharaxiintiina processka kama qayb noqon kartaan ka bax dadna ma soo xulan kartaan waa in doorashada loo tartamaa oo qof kasta oo jufida kursiga iskale ah oo damiciisu gaarsiiyay inuu tartamo oo tartama ergooyinka waa inay jufida iskale ku heshiisaa odaga 130 ugu jiraan oo saxiixa waa gartay Umar hadda si looga ilaaliyo in ay ayagu maamulaan xilliga doorashada ma leedahay waa ku dhacaya doorashadan xilliga doorashada horta miduu soo jiitamay doorashadu waxay ahayd 8 February sanadkan inay dhacdo haddana waxa maanta gabagabaa bishii 9aad 8 bilood bay marka hadda doorashadii dib u dhac ku jirtaa 8 bilood waxa la hortaagnaa inuu bob doorashaas ku dhacdo oo wadanka fowdo hor lagu galo markii la soo dhiiriyay oo la soo dhaweeyay qola kala rabtay inay afduubto oo ah maamul goboleedyada ayadana waxa la idinka yeelmiyo hadii marka nimankan damaca bobka uu ku jiro la yiraahdo may oo laga heshiiyo doorashadu si fudud bay u dhacaysaa si nabadgelyo ah u dhacaysaa si kalsooni ah u dhacaysaa wax shacabku taageeri karo Britole ayaa soo baxay oo raali laga wada yahay inta badan ummadda Soomaaliyeed hadii laakiin khilaafku dhamaan waayo oo damaca boobka ah uu wali taagnaado mucaaradka iyo indhargaradka Soomaaliyeedna ay aqbali waayaan iska horumaadka laga gudbimayo doorashada daahid bay keenaysaa inay wax daahaana waxa ka faa'iidaya madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday oo sida sharci darrada hadda ku jooga ayaa sii joogay marka laba daran mid dooro marka waxaan rabnaa laba dooran mid dooran inaan kala doorane aan iraahno laba dooran mayne doorasho cadaalad oo waqtigeeda ku dhacdaan rabnaa shalay madaxweynaha ka carreyseen oo la heedan muddo kororsanaya ma aan isku gruubaad heedan adinka iyo dawlad goboleedyada maanta hadana dawlad goboleedyada adinku waxaad muddo inay kala taagan tihiin doorashadan adinka saameyn toos ah kuma lihidino dadka wax soo xulayay deegaanka dadka lagala tashanay matiin musharaxiinaatiin intee ku xirantiin marka adinka anaga horta musharaxnimada aan nahay musharaxnimada ayaa waxay waajib nasiinaysaa ah inaanu difaacno wixii dalkan masiirkiisa iyo mustaqbalkiisa طبعا qof kasta Soomaali oo wax garadana waajibka waa saaran yahay way xuquuqda waxa leedahay baa leeyahay xuquuq midda aad difaacata leedahay hadaad difaacan xuquuqdaas waa laga qaadanaya adduunkan waxba la isma joojiyo nin damaaciyo tuugo wax dhacay lama waayo marka hadii aanu madaxweynihii hore madaxweynkiisii dhamaaday ka diidnay inuu doorashada asagu faraha kula jiro maamulo si uu u xaglisto doorashada oo dad u soo qorto maamul goboleedyadii shala aan isku jaalka ahayna ay damaciyo kala yeesheen ayagana waa inaanu iraadnaa may waa inaanu iraadnaa idinka yeelimiyo waxa kaliya oo mustaqbalkeena iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo dalkan ku xiran yahay waxa weeye wax heshiis lagu yahay oo cadaalad oo la aqbali karo tii un baanu difaacina annaga mowqifkayga isma bedelin laakiin nasiib darro maamul goboleedyadii wax u soo baxday
markay fiiriyeen meesha inay damaciyaan wax muquusan karaan oo sidii rabaan ay u dhigan karaan laakiin waxa leena shacabka Soomaaliyeed idinka yeelmiyo waxaad ku sameeynaysaan underestimation shacabka Soomaaliyeed cadaaladda siday u rabaan waqtigii boobka waa laga soo gudbay